إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وغيبتي سغالات قيبه آنوغا هدليي فضلك سلق النبي عليه الصلاة والسلام هي الدرجات كالوقارو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا النبي الأعظم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا الحبيب محمد. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، أو كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. نبينا أدقونا عليه الصلاة والسلام مقعيسى وات إلهي ودبردقي مقعيسى دبردقي ورفعنا لك ذكرك. إلهي ويري قفك مؤمن كن غنما لا إله إلا الله كريد إلا محمد رسول الله والراعي عليه الصلاة والسلام. كاساه مفتاح الجنة، ما دام كاس مفتاح الجنة ويا قفل بمؤمن جنده way u furan tahay ilaa kii ka weecda oo wada xun qaada oo xagga naarta wadadeedii qaada mooyee. wadada jannada Allah nagu hago nagu toosiyo waabu noo furay. salligiisa darajaadka lagu gaaro cadad ma laha. aad iyo aad waa camalka ugu najaxa iyo guusha badan. qaybtii 8 baan ku sheegay qowlkii laga wariyay imaamkii ibn al-Jawzi oo uu yiri: i'malu rahimakumullah anna salata ala sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam 10 karamatin baa laga helaa. shan kamid horan usoo sheegay maalinka tii 6 qadaa'ul hawaa'ij bay ahayd in danaha lagu gaaro nabiga salligiisa alayhi salatu wassalam. dhan kastaba danahaagu hadday kuwa adduunye yihiin ama kuwa aakhiraba ay yihiin waad ku gaaraysaa. kuwa adduunye aragnay, kuwa aakhirana maqallay Allah nagu gaarsiiye. mar haddii ilaahay adduunyada wax nagu tusay, haddee aakhiradana way naga horeeyaan. saasaan rajaynaynaa. horaan u sheegay inaan anigu xaajooyin adag aan ku gaaray. xadiisku ubay na waan ku sheegnay: idan tukfa hammaka, markuu yiri hamigaaga waxa ku burjiyo dhan waa laga kaafinaya. macnaha xawaa'ijtaada adduunya aakhiraba waa laga kaafinaya, waa lagu siinaya. arrinka yaan la moogaanin oo ha lagu dadaalo. yayna ahaan haddana xawaa'ij ku gaarna nabiga ha ugu salin calayhi salaatu wasalaam ee maxabaha ka ahaato qalbiga ka soo go'day iyo adoo abaalkiisu gudaya xagga ha ka ahaado mooye. waxaasaa lagu yaboohay oo salliga laga helaa. markaa niyaddu yay ka xumaanin. adoo ku gaaraya waxa adoo kuba gaari doona, laakiin niyadaada mid sare ka dhig. kan toddobaad waxaa li tanwiiru adhawaahir walasraar, in daahirkaaga iyo sirtaaduba ay nuuraan oo camalkaagu uu nuuro. macnuhu waa sidaasi yaad ka helaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisa aad ku gaaraysaa. daahirkaaga nuuraya, acmaashaada yaa dar alla noqonaysa, lilaahi noqonaysa. markaasaa dhalaalkii quruxda kaa baxaysa. haddana ummaddu ay la yaabayaan. kan 8 annajaat min cadaabi daari lbawaar buu yiri. inaad ka badbaado ciqaabka naarta, aad ka badbaado baad salliga nabiga ka helaysa calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeele horaan u sheegay in ninkaa salliga badinaya ee daliil uu yahay in qalbigiisa iyo jawaarixiisuba ay nabiga jecel yihiin calayhi salaatu wasalaam.
سأوجد آخرة مركا المرء مع من أحب يوهانيا شفاعة النبي قد جلس عليه الصلاة والسلام وكو وقمضا شفاعة يد قيامها وكو سلقي بدي وايد أهيدي هل كاسد جلسة بل حديث شفاعة أخرية النبي الله بهاني عليه الصلاة والسلام ومد أول يا آخر با يسوي هوستغي نو شفاعة أورانيان مركا شفاعة ديسا waxa ugu mudan oo inay naarta ka badbaadaan ugu mudan waa kuwa saligiisa badiya kuwa soo xaqiiqo ah kuwa jecel niman jecleen nabiga saligiisa badinaya kaleey salaatu wasalaam hadii aad ka badbaadin naarta hadii dukhul daar rahma wal qarar qodobka sagaalaad waka kaasad ku gaaraysa saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaa naar iyo janna meel saddexaysa oo banaankaas cidlada ma jiro qofkii tan ka badbaada taasuu gelaya marka jannaad ku gelaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisa jannaduu ku geynaya almar'u maca man axabba nabigaad la jaaraysaa calayhi salaatu wasalaam markaad salligiisa qaab maxabo ah uu kaga soo baxo mooye iska tuurtuur sallallahu alayhi wasallam ka iska dheh keliya kaas waa laga ajar badan yahay kan qalbiga ka imaanaya kaasaa mid sare ah الله نو سهلي قدم كتبنادنا سلام الملك الغفار إلهي بقركا وكو سلامية في الجنة الدنيا كوكونا بتقرينية وكاسبات كوي ليسا لما أنت الله نوفرو سلق النبي الله نوفر عليه الصلاة والسلام رقب ذنب على الشيء كوبت بادي وميرا سرسري كتغي النبي سلقيسا عليه الصلاة والسلام وحلا ورمي ذكر الحافظ رشيد الدين العطار نيك الأورنجري نيك سووه حسي وحجر كان بمصر مصر واحد شيء رجل صالح يسمى أبا سعيد الخياط بالغو مقعابي شري هرقال له ملها خياط نيك إساقا نين قوني جوغو نين كلي جوغو جوغ بو إسكاها خلوضو آدو شعلا وكان لا يختلط بالناس خلق يكون وصل له مترين ما دحقلي جرين باردتك ما حدتك دحقلكودا iyo la sheekaysadooda dimi badan baa laga helaa kaasoo iska ilaalinaya ama sidii kaltu ama sida kale mashquul u yahayba ninka dhikriga ilaahay saliga nabiga badinaya dadka xataa salaantooda baa dhibaysa isla markaa wala yaxdur al majalis ragab meel dadka ku kulmaan ma soo xaadiri jirin dabeed waa la yaabay waxa la arkay isagoo daa'imay ala xuduuri majlis abi rashiq ninka la oran jiray ibnu rashiqaas majliskiisii inuu daa'imay baa la arkay malaha diin buu ku akhrin jiray dadka way la yaabeen fatacajaba annaasu bihi fasa'aluuhu way weydiiyeen faqaala wuxuu ra'aytu nabiya xabiibka baan arkay sala allahu calayhi wasalam fil manaam baan ku arkay buu yidhi nabigu suu banaa faqaala amre wuxuu yidhi uxdur majlisahu ninkaa la dhaho ibnu rashiq majliskiisa xaadir buu yidhi maxaa yeelay fa inahu yugtaru fiihi asalaat calaya ninkaa majliskiisa waxaa aada loogu badiyaa aniga salligeyga iyo ducadayda dad wada jecel ba halkaa fadhiyo aada iigu salinaya saasaa xabiibku leeyahay calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay ibnu rashiq sheekhii majliska u saaxiibka ahaa markuu dhintay asaga laftiisii yaa ru'ya fil manaam lagu arkay fii xaalatin xasana isagoo qurux badan oo dhul wanaagsan jooga markaasaa waxaa lagu yidhi bima uutiita haada arrinkan maxaa lagugu siiyey war darajadan maxaad ku gaartay qaala wuxuu yidhi bikatrati salaatii cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam badinta aan badinayay salliga xabiibka aan badinayey kaasaan ku gaaray buu yidhi waa camal markaaba maqbuul ah marna aadan ku khasaaraynin wa ka'bin jaraax sheekh weynaa oo imaam shaafici sheekhiisa ahaa waxaa laga wariyay inuu yidhi lowla salaat cala rasuuli sala allahu calayhi wasalam hadduusan ahaan lahayn salliga nebiga fii kulli xadiisin xadiid kastoo la akhriyo waata nebiga can inabiyi sala allahu calayhi wasalam la raacinaye hadduusan kaasu jiri lahayn salligaas maa xadastu buu yidhi maban xadiisayenba xadiisba maanan wariyen buu leeyahay halkaa waxaa igu riixay
وصلي النبي آتك الله بدينا يو نمن كان محادثين تانا إن مالسن الله ودجيني والله شيء ما دام يسلق النبي آتك أبدينا يان عليه الصلاة والسلام ولي بسلق النبي سان دور جير شيء مثل مرها جمعها هبين كيسي مال كيسا حبيبك لقوري عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة مالمهين كان أفضل دقا بدن ومالك الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه قده سلقي بدية مالك الجمعة محيلة فإن صلاتكم ميزقاري اللي دهي معروضة علي والله بندقيا يا كافد لبدن مركز سلقاقيا مقعاقيا قبيلكاقيا يا أباها انتابا النبي الله بندقو يا كاقي من بدن مركز حديثك أبي داود باوريني وسحقري اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا لقابة عاوة جمعدي في الأنبياء فزمن هوا وكل أولياء ليتني فكيف بقي أرى بيو نعمة الكبرى على العالمين وهو السيد بني آدم صاحب اللواء يوم المحشر بيو أصبر عنا طيبات الغراء والروضات ولا قبات الغراء وفيها رسول معنبرا.